madaxweyne waxaan leenahay maanta waan ka sii afeef dhiganaynaa yaan berri marka free coldoon la yidhahdna laga sii daynin ninkaa waxaan u baahannahay inaynu mashaakilka ina haysta qaarkood isla fahmno waxaa had iyo jeer lagu murmaa iskuulkan barwaaqo iyo jaamacaddiisa dad badan oo ama aan fahamsanayn ama jibbadooda aan darsin waxa ka socda ama u cadowa islaamka ayaa waxay ka fidiyaan warar aanay hubin waxa ay yihiin taasi waxay u kaliftay inaan tago dugsiga abaarso oo shaqaynaya anigoo keligeeya oon ciidinayla socon oo gaadho yar wata si aan u ogaado waxa ka socda waxaana soo taabtay in iskuulkaasi ay ka socdaan wax qarankeennu u baahan yahay islaamku u baahan yahay islaamkuna u baahan yahay oo maxay waxaynu isweydiinaynaa dadka qisaska ka qaba markuu qofka Soomaaliga ah ee muslimka ah da uu yahayba uu la kulmo ninka Mareykanka ah ama ka Ingiriiska ah ama inanta Soomaaliga ay la kulanto ka Ingiriiska ah ama ka Yahuudiga ah ama ka Hindiga ah caabudo looda inuu baqayna galo dadkeena in la gaalaynayo teena la inaga saarayo oo inuu nahay dad daciif ah oo markaa maskaxdooda la qaadanayo oo markaa wax lagu shubanayo anigu taa waan ka soo horjeedaa ma nihin sidaa madaxweyne waxaan leenahay maanta waan ka sii afeef dhiganaynaa yaan berri marka free coldoon la yidhahdna laga sii daynin ninkaa laba nin oo kalena ha naloo soo raaciyaan leenahay labada nin ee masaajidada iyo goobaha cibaadada khudbadaha jimcaha kala sare kacay ee waxaanay ogeyn iyaguna ka hadlaya ee weliba qaarkood dagaalka ku baaqeen sida ninka aadan sunne la yidhaa muxuu ahaayey dagaal buu ninkaas ku baaqay ninkaas wuxuu muxuu ahaayey uu caddaystay isagu inuu wuxuu ku duulaan yahay nabadda Somaliland ay tahay isagoo marmarsiyahana ka soo dhiganaya abaarso iyo barwaaqo gacan hal la qaada buu yiri dagaal hal la qaada buu yiri gabay dheer baa buu tiriyo aanu Somaliland xitaa ku eegaanay leeyahay waxaan ku faraxsanahay xitaa dalalka jaarkeena gubanaya in muxuu ahaayey ragga noocaasana dawladdu ay tallaabo degdeg ka qaado weeyaan kuwa social media imika waxa aan jirin muxuu ahaayey in muxuu ahaayey soo dhigaya hariya habeen la taagana waa in sirdoonka qaranku daba gala sababtoo ah dad bay cirdigoodii iyo sharafkoodii ku muxuu ahaayey meel kaga dhacayaan hooyooyinka sharafta leh halka wada fadhiyay sharaftoodii meel kaga dhacayaan ee islaamnimada ku soo dhashay islaamnimada ubadkooda ku barbaariyay caruurta muxuu ahaayey labeentii wadanka ee u bixi wadanka ah ee muxuu ahaayey diinta iyo akhlaaqda iyo wanaagu ka muuqdo ayay duulaan ku yihiin aabayaasha mas'uuliyiinta ah ee ubadkooda meesha u dantaa iyagu garanaya ayay dayuusiin ku sheegayaan xumaan muxuu ahaayey iyagu kaga raali noqday ubadkoodii waxaasina wax jira maaha waxaanu leenahay markaa cidda dadka nooga warka roon la guryahayagii ilaa iskuuladani annaga guryahayagii yihiinoo kawr iyo hoosba uga warhaynee kuwa yidhi guryahoodii baan uga warroonnay waxaanu ka fadhiynaa aanu ka sugaynaa inay keenaan caddayn oo waxa ay sheegayaan ay badka soo dhigaan siiba saddexdaa ninaan carabka ku dhuftee midna masaajidka burco khudbadii jimcaha ka jeedinayey ee Mustafa magaciisa uu sheeganayay iyo ninka aadan sunna la yidhaahdo iyo ninkaa xidhan ee coldoon saddexdaa nin waxaanu muxuu uga fadhinaa oo ka doonaynaa in muxuu ahaayey baarista uu sameeyay madaxweynuhu waxa uu sheegay kadib markii uu maqlay hadalhaynta ama uu arkay hadalhaynta ka jirta dugsiga abaarso ayaa waxa uu sheegay inuu lugihiisa ku tagay keligii si uu soo ogaado waxa halka ka socda waxaan uu sheegay inay u soo baxday natiijo ah in halkaasi ay tahay meel wanaagsan oo lagu hayo wax u dana ummadda iyo islaamkaba natiijadaas uga soo baxday haddaba natiijada uga soo baxday waxa ama baarista lafteeda ayaa waxa aynu ama aan iska weydiinaynaa madaxweynuhu marka uu dalka joogo gooba uu dugsi booqanaya tusaale ahaan oo kale bal qiyaasa intuu joogi karaa muddo kooban badh ilaa saacad baa laga yaabaa inuu joogo dugsigaas
muddada yare kooban muxuu ku ogaan karaa muxuu xog ku ogaan karaa waxa la sheegay ee tirada badan sidee buu ku ogaan karaa muddada kooban taas waa taas qodobka labaadna waxa laga sheegay dugsigu de ma aha wax la taaban karo oo saa loo gacanta loogu taaban karo ama la arki karo badankoodu oo ma aha inuu hadduu meesha ugu tago wixii la sheegay inuu arkayo sidii maxaa khamri xashiishad dad wax leynaya hub saas ma meesha waxa lagu hayaaba waxay u badan yihiin waxaan la taaban karin waa barbaarin waa afkaar baa lagu fudanaya ardayda afkaar baa lagu shubaya waxa weeye sanawaad soconaysa sidee baad ku ogaan kartaa marka yani ugu badnaan saacad saa lagu ogaan karaa teeda labaad marka loo yimaado maxay kuu sheegayaan maxay kuu sheegi lahaayeen ay kaaga warrami lahaayeen wixii lagu eedanayay may kuu sheegayaan طبعا de waxa weeye jawaabtu waxa weeye waa maya haddii uu madaxweynuhu uu doonayo inuu xogta ogaado sida uu sheegay waxay ahayd inuu guddi madax bannaan oo lagu kalsoon yahay loo saaro oo ummaddu ay raalli ku tahay oo ay culimmaduna kow ka yihiin guddida xubna ka yihiin iyagaa loo soo ogaan lahaa iyagaa ummadda u sheegi lahaa iyagaana ku soo noqon lahaa madaxweynaha oo u sheegi lahaa waxa halkaa ka jira qodobka labaad ee uu ka hadlay madaxweynuhu waxa uu yani la dhacsanaa arrin uu sheegay inay maalgelin weyn ay sameeyeen qolada xaruntaasi ama dugsigaasi oo waxa uu sheegay arday dabadda loo diray oo ku dhow 300 oo arday oo ka baxay dugsiga Abaarso oo lagu maalgeliyay in ka badan 30 milyan oo dollar oo uga jeedo madaxweynuhu maxaa lacag badan ayaa maxaa lagu maalgeliyay waaye kaba soo qaad ba lacag baa lagu maalgeliyay tira badan lacagta qoladii bixisay ma bilaa ujeedo bixisay ujeedo maxay ay ka lahaayeen ujeedo ma laha miya yani waxa weeye ma jacaylayna jecelihiin bay ay maxaa dugsiga halkan uga sameeyeen oo ardadeena wax u bareen oo ay dabadaha u direen ma jacayl ba miyay naga heleen miyayna u naxariisteen dadkani waxaynu kala nahay kala fikir kala diin waa yani ninka intuu ka yimi cirifka adduunka yani maxaa igu yimi halkan dhulkan ujeedadiisu waa maxay طبعا ujeedu leeyahay ujeedada uu leeyahayna halkan aanu ka sheegaynaa ujeedadoodu waxa weeye inay soo saaraan dad iyaga la mid ah la fikira ka agdhow oo ay ku shubtaan kana saaraan wixii hore say ugu fushadaan mashaariicda ay doonayaan dad iyaga ah oo muwaaliin u ah oo u daacada oo ay tababareen sanawaad badan tababareen ay doonayaan soo saaraan waxay doonayaan oo yani waxay ugu yeedhan hal door iyo labeentii bulshada dadkii horkacayay hogaankii horkacayay bay doonayaan sameeyaan oo siyaasad ahaan horkacaya waxbarasho ahaan horkacaya caafimaad ahaan qaybtii dumarka qaybtii dhalinyarada manaaxil haya dhinacyada nolosha oo dhan waxay doonayaan inay noo soo saaraan dadyow inala magaca inala midab inala dal laakiin maskaxdu aanay maskaxdeennii ahayn qalbiguna aanu qalbigeennii ahayn daatada iyo macluumaadka iyo fikirka iyo ideolojiyada ku jirta aanay teeni ahayn aynu rabnay ay tahay ninka samaystay dhaqankiisa iyo fikirkiisa iyo wuxuu doonayo ayay doonayaan inoo soo saaraan teeda labaad nin si cad u doonaya inuu soo saaro hogaamiyeyaal sidee baan ugu ogolaanay dalkeena inuu qaabkan oo kale uga shaqeeyo oo uu soo saaro hogaamiyaha ay sameynayaan aniga hogaamiyaha ay sameynayaan ma nin gaala aniga hogaamiye wanaagsan ii sameynaya ma nin aan kala diinahay ayaa hogaamiye wanaagsan ii sameynaya wuxuu ii sameynaya mid la aragtiya buu sameynaya mid muxuu ahaayay la fikra buu sameynaya mid aniga muxuu ahaayay muuqaal ahaan iyaga laakiin aan yani wax aan doonayo aan doonayn buu muxuu ahaayay soo saaraya xarumaha waxbarashadu ee ay fartu ku godan tahay iyo xarumaha dhaqanka ee ay fartu ku godan tahay xarumahaasi waxay keeneen وين runta isu sheegna yani waxa weey wax la dhaco ma wax la amaanana ma wax laga qajilo weey wax laga xishoodo weey in maanta kuwa la safto dadkaasi waxay keeneen bulshada ugu guracan adduunka bulshada aan sameyn xitaa waxa uu sameeyo xayawaanku waxay keeneen labka wax ka daya ama hungureeya iyo dhadiga wax ka daya ama hungureeya
dadka noocaasa bay inoo keeneen dadkeennii bay ku sii dhex daayeen oo ay uga dhigeen tusaale wanaagsan intaasaa ku fillayd oo ay ahayd madaxweynuhuna inuu xisaabta ku darsado intaasaa ku fillayd inay tahay meeshaasi meelo aan khayr lahayn meelo aan wanaag soo wadin meelo aan wax ummadda islaamka iyo muslimiinta u dana aan lagu hayn xarumahaas baas ee isugu jira waxbarashada iyo dhaqanka waxa ka digay oo ummadda uga digay xumaantooda iyo dhibta ay leeyihiin culimadii baa ka digtay guddidii wanaag farista ka digtay waxgaradkii baa ka digay intuba way ka digeenoo meeshaas muxuu ahaayey dowladdana way kula dardaarmeen oo ummadda ka qabta aragtida guud ee bulshadana haddii la soo hadal qaado meelahaas intooda badan waa diidan yihiin adduunka waa laga tegayaa adduunkan waa laga tegayaa fursad baad haysataa dahabiya maanta ilaahay wuxuu kaa dhigay ama maanta ilaahay madaxweynaha wuxuu ka dhigay يعني محوها ما أنت قف كتلين كرا أو جوامين كرا أو ديدي كرا قالوا ده واحد دونيسو أو إلهي رالي قلين كرا مركا ما أنت فساد بعد هيستاي ور مدن دين الإسلام كقولك ور وحيد دين الإسلام كلا ده قالوا ما يوم مدن كقبو ور لقرن ما يقارته وجيرود يمن إزاي ويسود دواتي إنه بيسود دواتي خاتمه ونعكسنا دوكا إنه كقتنا ولي ما بدحونه خاتمه ونعكسنا كقتنا ومدن خيرها كقتنا لقرن ما ينتلسين ولاني ربي على كلن هذا أمدي إسلام كجتجي لكنها كجتجي هذا يقول ما هي سينة هي قرب ما هي حرمها نوع عاصة أنت هسيان كسوق بجبينية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.